shirkii nabadeed ee degmada Ceel Afweyn ayaa saaka mar kale si rasmi ah uga bilaabmay degmadaasi Ceel Afweyn waxaana ka soo qayb galay shirgudoonka ergooyinka nabadeed iyo dhammaanba xubnihii ergooyinka nabadeed ee isaga yimi guud ahaanba dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mudane Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo Axmed Yuusuf Yaasiin oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenadii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland furitaankii shirka kadib waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay afhayeenka shirgudoonka nabadeed Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre oo ka dalbaday labada dhinac in ay ka jawaabaan dalabkii ay hore shirgudoonku uga dalbadeen xidhayaasha labada dhinac waxaan jecelahay laba suldaan oo salaadiinteena waaweyn kamida inaan mid walba kelmad siiyo waxaan salaadiinta ka codsanaynaa iyagoo sharaf naga mudan inay ka jawaabaan laba erey oo ah ciidankii ma la kala qaaday dhinaciina ma ka howlgasheen miyay maanta wax idinka xanima yihiin soo hawshii iyo garnaqi ma bilowno Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madaare iyo Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali ayaa waxa ay ka jawaabeen dalabkaasi shirgudoonka su'aasha aan weydiiseen ee ku saabsan dhinaca xagga ciidamada wax ciidanahoo maxay ahayd ku urursan imika meel oo hawsha maxay u tafaxaydan ama duulaana xagga kuma ogin hawshaas waa dhan tahay xagga dacwadda iyo shantii maalmood aynu kala qaadanay soo diyaar garowgeedana waa dhan tahay oo dhinaca reerka Sacad Yoonis waa ka dhan tahay waxa la su'aalay waxa weeye ciidamadii ma kala qaadeen ciidamadii waa tii awalba hore loo kala qaadayo waxa la yiri ciidan meel ku urursan ma jiro ciidankii xagga kan la kala dir warkaana yaa waa ka weeyay arrintii ma bilaabmaydi ka dhantahay ma bilaabayna suldaan qartii ma bilaabayna ma idinka dhantahay diyaar ma u tihiin maya waxba naga dhiman buur madow oo ka soo baxay saaka Hargeysa maalintii horena dawaaligii sheegay xaajigaasi ilaa uu noo yimaado ma gulmarin nalagu sumo ilaa biri caawa intaasi kadib waxa shirgudoonku ay soo saareen qodobo go'aan u ah habsami u socodka shirka waxaana halkaasi ka soo jeediyay qodobadaasi afhayeenka shirgudoonka ergooyinka nabadeed Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre iyo Suldaan Cabdiraxmaan Dawal maanta laga bilaabo ciidamadu waxa ay bilaabi doonaan kormeero ay ku hubinayaan in soo jeedinada salaadiintu ay sax tahay waana sax saasaanan u qaadanayna cidii ciidan urursan ciidanku meel uu ka arko ciidanka urursan iyo ciidanka qaranka dhexdooda booliis iyo militariba wixii dhib ka yimaada beesha loogu tago ciidan urursani dhibta meesha ka timaada mas'uuliyadeeda iyada qaadi doonta waxaanu soo qorshaynay in ay sidii caadada ahayd haday culimo tahay haday dhaqan tahayba in ay ka hadlaan xaajada iyo dhibta wixii ay sheeganayaan ay ka hadlaan dhinac walba saddex ay ka hadlaan maqaamin saddex nin inay ku filan tahay bay ergadu ku soo gabagabaysay waxaan isnii labadii dariif ee dhibaatadu kala gaadhay bari loo kala tagayaa inuu mid walba 21 laga dhaariyo min 11 ay qoraalka ay soo qoraan xaajada saa loo galo bari subax waxay noo bilaabaya hadii ilaahay idmo bari subax ay noo bilaabaya waxa weeyaan waa warqadii la soo gudbiyo oo 11 ka soo fadhiistaan waa min 21 oo la dhaariyo hadii ilaahay na gaarsiiyo waa raggii xaajadan lahaa ee oo hadalkii halka ka bilaabo hadii la yiraahdo sidoo kale waxaa halkaasi hadallo isugu jira duco dardaaran
iyo dhiirigelin ka soo jeediyey mudane cabdiraxmaan ow cali faarax iyo axmed yuusuf yaasiin waxaana hadalladii mas-uuliyiintan ka mid ahaa darifyada walaalaha ay wax dhex mareenna ay noqdaan kuwii talada ka soo baxda halkan qaata ee sideeda u fuliya xukuumaddana waxaanu faraynaa oonu leenahay halkaa wixii ka soo baxa fulinteeda xukuumaddaa leh waxaa loo baahan yahay in ay si cadaalada wax u maamusho shaqadeedana qabsato ciddii waxa halkaa ka soo baxa ku socon weyda Soomaaliya inay dhinac ka wada noqoto iyaa loo baahan yahay marka labada muslimka la heshiisiyo ciidii ka baxda in gacan la saarayo xukuumadda waan kala hadalnay waan ku adkaynay 3 sanadood baa laba faamilyo hoos oo isku leexso jiray abahan habarlamaan oo isku jecbaraya 3 soo dilaya ciidan aqbali mayso go'aanka waxa la qaatay ciidda soo celisa in gacan bir ah laga qabto in gacan la wada saaro oo aan loo ahabayeelin go'aanka madaxweyne ilaa wixii waddankan soo xogtay oo suranimi وسعنانني وأرن كعدة سوء على ما يشيء ولما سوء أي حكم كذا إن عدة سوء إن جعان لا صاروا أنا أقبل ما إن يربى واحد جليه وعنك وحن صنع أنه إسلام ما دقنا عدة وضع وبيشي لمن كيوها على عقد بقى وحن وضع ومن حقيقة وأنا بيكلمنا jamaal jaamac xamuud oo ahaa ergey nabadeed oo ka socday xisbiga wadani ayaa hadallo isugu jira dardaaran iyo in la dhowro nabadgelyada u soo jeediyey labada dhinac waxaanu jecel lahay colaadda soo noqnoqotay ee 3 sanadood soo socotay ee dadka walaalaha anigu waxaan ku tilmaamo garan maayo riixanka ee shaydaan isku diray in ilaahay burcad beerkooda isu mariyo shirkan ayaa ah kii ugu cuslaa ee noociisa ah ee ka howlgala nabadeynta dadka walaalaha ah ee dirirtu ku dhexmartay deegaanada ceel afweyn oo 3 sanadood ee u dambeeyay halkaasi ay diriri ku dhexmaraysay waa axmed jaamac faarax iyo cabdicasiis maxamed maydhac TV-ga qaranka ceel afweyn